hay-adda shaqaalaha dawladda ayaa waxa ay maanta shaacisay kala saaridda wejigii labaad ee diiwaangelinta shaqaalaha dawladda. hay-adda shaqaalaha dawladda oo muddooyinkii u dambeeyay gacanta ku haysay howlqabadka qaran ee tirinta iyo tayeynta shaqaalaha ayaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle oo ay weheliyaan saraakiisha hay-adda shaqaalaha uu maanta shaaciyay in la bilaabayo kala shaandhaynta wejigii labaad ee shaqaalaha aan isdiiwaangelin. haddaba 24 bisha ee toddobaad ee sanadan aynu ku jirno hay-adda shaqaalaha dawladdu waxa ay wejigii koobaad ka joojisay 250 kaalmo shaqo kuwaasi oo la soo waayay meel ay taan iyo cirib dhigeen kuwaasi oo si wanaagsan looga saaray diiwaangelinta mushaar bixinta dawladda. gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle oo warbaahinta u soo bandhigay fariintani loo gudbinayo shaqaalaha kala duwan aan isdiiwaangelin ayaa waxa kamid ah hadaladiisii. maanta waa 29 bisha 8 2018 guddiga hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan ka diraysaa fariin iyo yeerma oo dhammaan shaqaalaha dawladda intii aan isdiiwaangelin loogu sheegay jadwalka dib u eegidda dadkii cabasho ama codsi qabay. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay u gudbisay wasaaradda iyo hay'ad walba oo dawladeed tiradii shaqaalaha aan isdiiwaangelin marka laga reebo intii aan dhawaan u gudbinay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud si shaqada looga saaro. kaalimaha soo dhanaa 1252 ay hay'adda shaqaalaha dawladdu wajigii koobaad ka joojisay kaalmaha shaqo ee aan jirin markii hore aan ahayn kaalmo shaqo oo jira. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay dib u eegidda 1224 kaalimood oo isugu jiray duliyaal, fasax caafimaad, fasax waxbarasho, dood magac iyo dadkii dhintay ee payroll-ka dana ku jiray. hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan baaq uga diraysaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee aan isdiiwaangelin isla markaana aan ku jirin 1252 shaqaale ee aanu ka joojinay shaqada kaalmaha shaqaanu ka saarnay in ay degdeg ula xiriiraan wasaaradda iyo hay'adda dawladeed ay ka howlgalaan si ay u helaan jadwalka diiwaangelinta iyo dib u eegidda dacwadaha intii markaa qabtay. diiwaangelinta iyo dib u eegiddaasi dacwadda waxa u fadhiisan doona guddi 1 bisha September ilaa 12 bisha September. 12 cisho waxa ku soo dhamaan doona dhammaanba dadkii u baahnaa in dib u eegis iyo dib u qiimeyn lagu sameeyo. halkaas hay'adda shaqaalaha dawladdu soo saari doonto liiska ugu dambeeya ee runtii mar labaad ama la diiwaangelin doono ama shaqada laga joojin doono. shaqaale adeega meel joogtaba hadii aanad isdiiwaangelin aanad kuna jirin 1252 shaqada laga joojiyay degdeg ula xiriir wasaaradda iyo hay'adda dawladeed. waxaan fariintan kugu soo dirayaa waa markii ugu dambeysay iyo fursadii ugu dambeysay ee dib u eegis diiwaangelin dacwad iyo dood hay'adda shaqaaluhu dib u dhageysan doonto. kaalimaha shaqo wixii halkii hore ka soo banaanaaday iyo kuwa la isku daray hay'adda shaqaaluhu waxay bilaabaysaa qorsheyntii iyo qaybintii iyo tartamadii inay furmaan. dhammaan shaqaalaha dawladdu meel ay joogaanba intii aan isdiiwaangelin hala xiriiraan hay'adooda dawladeed sida ugu degdega badan si ay u helaan dib u qiimeyn, dib u dhageysi iyo haddii ay ansaxaan dib u diiwaangelin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.